xirfadood oo mustaqbal leh 2026 haddii aad rabto dakhli joogto ah dad badan maanta shaqo ma haystaan halka dad kale ay internetka ka sameeyaan dakhli joogto ah su'aashu waa xirfadee ayaa mustaqbal leh 2026 muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa 6 xirfadood oo si dhab ah lacag looga sameeyo kuna haboon dhalinyarada iyo dadka doonaya horumar nololeed ugu horreyn walaal waxaan YouTube-ka kaga hadalnaa online business-ka iyo horumarinta shakhsiyadda haddii aad jeceshahay mowduucyadaas fadlan nagu soo biir oo subscribe noo saar si aad u hesho muuqaalo badan oo la xiriira ganacsiga online-ka iyo horumarinta shakhsiyadda lixda xirfadood oo aanu soo xulnay oo runtii ah 6 xirfadood oo muhiim ah oo qofka bartaa uu dakhli ama dhaqaale badan uu kaga sameyn karo waxa ugu horeysa xirfadda la yiraahdo artificial intelligence ama loo yaqaan AI skills dabcan AI-gu waa xirfad ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee maanta suuqa looga baahan yahay AI waa xirfadda ugu baahida badan maanta qofku wuxuu baranayaa qofka tusaale xirfadan barta waxyaabaha uu baranaya waxa ka mid ah AI tools sida loo isticmaalo tools sida ChatGPT Gemini sida loo isticmaalo ama loo sameeyo waxa la yiraahdo prompt writing dabcan marka aad rabto inaad AI-ga aad rabto inuu wax kuu sameeyo waxa qasab ah inaad taqaan qaabka wax loo weydiiyo ama qaabka wax loo weydiiyo si shaqada aad rabto uu kugu qabto dabcan taasna waxa ay tahay in qofku uu barto qofka yaqaana aad bay u fududahay marka wax allaale iyo wixii uu rabo in uu markaa si fiican ugu sameyn karo marka AI isagoo isticmaalaya marka su'aashu waxay tahay sidee isku fahmaysaan haddii aad aqoon prompt writing haddii aad aqoon marka taasina waa muhiim waxyaabaha kale oo AI skills-ka lagu barto waxa ka mid ah AI automation waxyaabaha lagu barto waxa ka mid ah content and business sida content loogu sameeyo ama xog ama muuqaal ama content loogu sameeyo sidoo kale sida business-ka aad uga faa'iideyso sida business-kaagu aad uga faa'iideyn lahayd adigoo isticmaalaya AI-ga waa la socotaan maanta waqti badan oo qaadan jiray in lagu sameeyo graphic design in la geliyo si fudud maanta AI-ga baa shaqada ku sameynaya sawir kasta iyo xayeysiin kasta iyo post kasta oo u baahan tahay isla daqiiqad isla second kaliya waxa la sameyn karaa 10 post oo kala duwan halka qof hadii la shaqaaleysiyo graphic design ay qaadanayso inuu hal sawir soo saaro wax ka badan 2 saacadood marka hadda runtii aad ba wax loogu guuro in businessyadii oo dhan waxa aad xoog u saaraan inay shaqaaleysiiyaan dad artificial intelligence-ga aad ugu fiican si marka content-ga iyo macluumaadka iyo business-ka horumarkiisa dabcan looga faa'iideysto iyadoo la isticmaalayo marka dabcan AI-ga yaa baran kara xirfadda marka AI-ga waxa baran kara qof kasta oo raba inuu si caqli ah u shaqeeyo oo mana aha cilmi muruq u baahan waa cilmi u baahan in aad markaa si caqli ah u shaqeyso dabcan waa xirfadda koowaad ee maanta buug kasta iyo joornaalada ugu horeeyaba ay kaalinta koowaad gelinayaan artificial intelligence marka Soomaali ka hadlayno deegaanada Soomaaliyeed runtii waa xirfad aad loogu baahan yahay oo businessyadii iyo cid kasta iyo dawladda kulli waxa loo baahan yahay dad artificial intelligence si fiican u yaqaan hadda inta sawirkaaga u didhaa waxa oran kartaa ii samee sawirkii anoo soconayo muuqaal iga samee waxaad oran kartaa sawirka waxa weeye shaambadaas waxaad igu bedeshaa shayga kale iga samee waxaad ii sawirtaa cabitaan waxa weeye muuqaal ii samee cabitaan waxa weeye isagoo baraf ku dhex jira oo xayeysiin ah dabcan si fudud buu kugu sameeynaya laakiin haddii xirfadda aad barato qofkii yaqaan baa ku shaqeyn kara runtii dhalinyaro badan waxa jirta cilmiga intay baratay runtii aad dakhli badan iyo dhaqaale badan uga sameeya marka xirfadda koowaad waa artificial intelligence xirfadda labaad oo ay tahay inaad barato 2026 waa digital marketing waa xayeysiinta ganacsiyada online-ka qaabka loo xayeysiiyo qofka bartaa wuxuu baranayaa sida Facebook iyo Google Ads-ka loo sameeyo xayeysiinta Facebook iyo Google-ka sida loo kiciyo loo maamulo content marketing oo ah sida content-ga loo soo geeyo iyo email marketing runtii digital marketing ganacsi kasta oo maanta jira wuxuu u baahan yahay digital marketing waana xirfad runtii ay laga maarmaan tahay qofka si fiican u yaqaan oo runtii shaqo uu sanina ka barayeen sababta ay mustaqbal u leedahay ganacsi kasta maanta online ayuu u wareegay yay ku haboon tahay qof kasta oo jecel barashada xayeysiinta iyo falanqaynta dabcan waa koorsada labaad ardayga isku barta labada koorso oo AI skills iyo digital marketing dabcan ardaygaasi waxa weeye dhaqaale fiican iyo cilmi iyo aqoon uu runtii mustaqbal leh ayuu gacanta ku dhigay
xirfadda saddexaad oo lagula talinayo ee lixda xirfadood aan soo xulnay ka mid ah waa video editing sida loo sameeyo muuqaalada iyo content-ga qaabka loo abuuro YouTube iyo TikTok iyo Instagram dhammaantood waxay u baahan yihiin in la sameeyo video editors dad markaa muuqaal la sameeyo hadda YouTubers-kii hadda jiri jiray kulligood waxa qofka YouTuber kasta oo xogaa caan noqday wuxuu u baahan yahay qof u soo edit gareeyo muuqaalada businessyadu waxay u baahan yihiin qof muuqaalo u sameeyo muuqaalada u qurxiyo u edit gareeya marka waana fursad xirfad runtii qof kasta uu u baahan yahay waxa la isticmaalaa YouTube video loo sameeyo lagu bartaa ediska sida loo sameeyo reelska iyo shortska iyo qaabka loo sameeyo ediska dabcan waxa weeye muuqaalada loogu talagalay xayeysiinta faa'iidada laga helay waxa weeye lacag badan baad ka heli kartaa waxaana ku bilaabi kartaa mobilkaaga iyo laptopkii aad heli karto ayaad xirfadan ku baran kartaa adigoon cid u shaqaynba adiga ayaa noqon kara YouTuber ama Facebooker runtii dakhli ka samayn kara xayeysiinta marka YouTube iyo Facebook ay bixiyaan xirfadda afraadi waxa weeye programming iyo web development sida loo sameeyo website-yada iyo ababka sida loo sameeyo websites iyo ababka waa laf-dhabarta ganacsiga casriga ah ee maanta luqadaha caanka ah ee programming iyo website-ka lagu sameeyo waxa kamid ah HTML iyo JavaScript sababta ay u shaqeynaysa 2026 waxa weeye tiknoolajiyada mar walba way sii koraysaa oo qofka xirfadan runtii barta business kasta iyo maanta shirkad kasta oo jirta waxay u baahan tahay wax la yiraahdo website marka website-kiina yaa dhisi kara qof aqoontii iyo xirfadii leh marka taasina waa muhiim xirfadda shanaad waxaan ku arki doonaa wax la yiraahdo freelancing waa xirfad kasto aad tahay ama xirfad kasto aad leedahay inaad online-ka ku iibiso freelancing waa inaad xirfadaada ku iibiso internet-ka tusaalooyin haddii aad taqaano graphic design-ka ama writing-ka ama translation oo isku turjumida luqadaha ama aad garanayso waxa weeye sida loo sameeyo website-yada runtii freelancer ahaan baad ku shaqayn kartaa goobaha freelancer-ka laga helo waxa kamid ah abka la yiraahdo Fiverr, Upwork iyo Freelancer runtii ababkaasi waa ababka caawinaya markaa inaad professional la shaqayn karto daafaha adduunka dadka ku nool oo dhan malaayiin shaqo ayaa bilowba lagu soo xayeysiiyaa ababka markaa la yahay Fiverr, Upwork oo u badan sida loo sameeyo turjumaada luqadaha muuqaal samaynta logooyinka graphic design-ka sida loo sameeyo wax la yiraahdo xayeysiinta kulligood marka adiguna waa samayn kartaa oo waad ka shaqaysan kartaa marka ababka adigoo baranaya xirfadaha aad lahayd suuq geynaya si kale fudud waxa weeye inaad aqoontii aad baratay dadka u gudbisana lacag baad kaga samayn kartaa taasina runtii waa xirfad aad u fudud xirfadda lixaad waxa weeye cryptocurrency iyo blockchain knowledge inaad barato aqoonta cryptocurrency oo lacagaha qalaad ee cryptocurrency iyo blockchain-ka ay ku shaqeeyaan inaad si fiican u barato crypto ma aha kaliya maalgelin waa xirfad waxaad baran doontaa trade basic sida loo sameeyo ganacsiga amniga security-ga sida loo sameeyo blockchain-ka aasaaska blockchain-ka oo dabcan hadda website-yada waxay u guurayaan in blockchain ay dabcan ay ka dhigtaan website-kooda marka taasina cryptocurrency runtii qofka hadduu barto wuu maal gashan karaa wuu ka trade gareyn karaa si daily uga trade gareyn karaa faa'iido uga samayn karaa waa sida forex oo kale investment buu ku samayn karaa long term vision runtii iyadana halkaasna dakhli buu ka heli karaa laakiin crypto ha u arkin lacag degdeg ah u arag xirfad waqti qaadata marka digniintaasi had iyo goor qofku markuu crypto galayo qofa isla markii wuxuu moodayaa in uu lacag markiiba laga sameynayo laakiin waa xirfad qofku uu waqti u baahan qofkan uu runtii u baran karo gunaanadka waxaan ku soo ururinaynaa haddii aad rabto mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan hal xirfad baro si qoto dheer u baro kana adkayso ha ku degdegin natiijo guushu waa dulqaad iyo inaad markaa samir aad samayso marka halkaasi waxa weeye lixda xirfadood runtii waa xirfadaha ugu horeeya ee kaalinta koowaad ku jira ee runtii aadka muhiimka u ah ee laga rabo qofka inuu barto maanta xirfad baa muhiim ah jaamacad baan soo dhigtay 6 sano soo dhigtay 10 sano soo dhigtay suuqa shaqada waxba kama goyso maxaa taqaanaa oo xirfad oo aad qaban kartaa baa muhiim ah marka waxaan rajaynaynaa dhalinyar badan haddii laba xirfadood saddex xirfadood qaadan karto ragnimo afar hadaad qaadan karto haddii aad arday jaamacadeed tahay waa inaad xirfadahaaga badsataa oo aadan biri aadanina u daba fariisan sida aad u shaqaysan lahayd fadlan like noo saar subscribe samee commentiga noogu reeb xirfadda aad rabto inaad barato ama aad jeceshahay inaan ka soo hadli lahayn aad ba mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.